السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسن داوديال كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii falaqaynta cayaaraha ee Super Sunday si gaar ah waxaynu u dul istaagi doonaa kooxda Man City ee calawleynaysa ayaa maraqeeda cabtay kooxda Chelsea oo gurigeedii ku sugan taageerayaashii Chelsea oo afka qabsaday inkastoo 45 daqiiqo ee hore ciyaarta ay ku adkeeyeen Man City laakiin Man City waa Man City Man City oo cayrsanaysa kooxda Arsenal oo dhaawac ah oo dhutinaysa Chelsea ayaa hore loo sii qaatay oo la sii dardaray wacdara culus ayaa ka dhacay waxa la waayay meel ay ka baxeen ciyaartoydii kooxda Chelsea oo si qaldan u burisay tababarahoodii ma ka shalayn doontaa inay iska direen Enza waxa kale oo ka sii daran أنزيه ugu muhiimsanaa ciyaarta ayaa garaax la geliyay hadaba koox u dagaalamaysa Champions League xaaladan ma ka badbaadi kartaa mise geli kartaaba tababaraha cusub ee kooxda Chelsea wacdara culus ayaa haysta saddex kulan isku xigta ayaa laga badanayaa gurigiisa waliba Premier League xaaladdu way ku xuntaa Chelsea iska dhaaf Champions League Europa League Conference League miyay ka ciyaari doontaa oo qabista miyay xoog saari doontaa maxay uga macno tahay Pep Guardiola iyo ciidankiisa ciyaartan waxay u malabsanayaan kooxda Arsenal markii la wareystay waxay leeyihiin Chelsea maskaxdeena kuma nahaynba waxaan u soconaa meel yiraahdo Etihad Stadium iyo axadda dambe si aan Arsenal u qararmsano laakiin Arsenal laftigeeda ayaa dhaaranaysa waxay leedahay waa inoo axadda haddaan iska reebi weyno wahagaag waynu arki doonaa wixii halkaas ka soo cusboonaada sidoo kale xagga Yurub ayaynu eegi doonaa dhammaan ciyaaraha ka jira aftaxan soo dhaweeyo barnaamijka ay gala qayb qaadanaya عود افتح محمود حالكو انه ku adag yahay kooxda Chelsea oo imaan doona laakiin xagga Yurub gaar ahaan Serie A maxaa ka socda fiidnimo wanaagsan daawadayaal ciyaar aan caadi ahayn ayaa hadda waxay ka socotaa garoonka Como kooxda Cesc Fabregas oo kaalinta shanaad sanadkan ku jiraan Serie A waxay u baxayaan Inter Milan ciyaarta qaybtii koowaad waxay ku dhamaatay 2-0 ama 2 gool ay la hormareen inta ugu dambeysay intaas qaybtii koowaad ay dhamaanay kaambiyada koowaad ayaa Inter Milan waxay ka dhigeen 2-1 Marcus Thuram ayaa gool ku dhaliyay markii ciyaarta qaybtii labaad san loo bilaabay hadda waxay maraysaa ciyaarta daqiiqadii waxay maraysaa konton iyo 4 ayay maraysaa hadartaan laakiin 49 daqiiqo markay maraysay ay soo bareejeen Marcus Thuram ayaa labada gool u dhaliyay Inter Milan marka waxay ka dhigantaa hadda ciyaarta 2-2 inay marayso oo kaalinta koowaad wali inay Inter Milan ay ku soo jirto inta ka dhimana ciyaarta oo barnaamijkan ku jirana waan arki doonaa wixii ku soo kordha daawadaashana u sheeganaa ciyaartan maanta intaysan bilaabin Napoli ayaa ayagana ciyaartooda waxay ku soo dhamaatay 1-1 waliba ciyaar adag ay ahayd laakiin waxay ku tusinaysaa Parma ay u baxayeen waxay ku tusinaysaa marka sanadkan Inter Milan inay aad u adag tahay in lala tartamo marka waxa hadda Inter hadii ciyaartan hadda ay badiso fursad weyn ay haysataa waxay ciyaartan ku dhamaysan kartaa 75 dhibcood marka waxay ka dhigan tahay in 9 dhibcood ay ka sareyn doonto kooxda ugu dhow ee Napoli ah marka waan arki doonaa ciyaarahaasi sidii ku soo kala dhamaadaan laakiin kooxaha inta kale Spain oo kale Barcelona iyo Atletico Madrid iyo Real Madrid waxay isku diyaarinayaan Champions League Bayern Munich Champions League ay isku diyaarinaysaa iyada sidoo kale shalay 5-0 ay ku badiyeen marka Bayern Munich Real Madrid yaa soo kala bixi doona Champions League waan eegi doonaa waan arki doonaa wixii ciyaarahaasi ku soo kordha Barcelona iyo Atletico Madrid yaa ciyaartaas badin doona 2-0 ay ciyaartii hore ku soo dhamaatay oo Barcelona laga soo garaacay 2-0 laakiin garoonka Atletico Madrid marka lagu ciyaarayo wax kasta ayaa iska dhici kara Barcelona waxay taagan ayaga isma dhiibeyno waan arki doonaa wixii ciyaartaas ku soo dhamaato PSG iyo Liverpool ayadana 2-0 ay ku soo dhamaatay qaybtii koowaad ciyaartii koowaad marka waan arki doonaa ciyaarta dambana waxa ay ku soo dhamaato marka sidaas ay hadda u kala socdaan ciyaaraha Europe waa gartay waanu arki doonaa wixii ku soo kordha arrimahaasi waa yahay maxaa laga filan karaa Man United habeen dambe horta Man United maanta fursad fiican ayaa la siiyay maxaa yeelay Chelsea ayaa laga badiyay oo noo imaan doona ciyaartii Chelsea laakiin hadda waxay haystaan fursad haddii Bristol ay badiyaan in 10 dhibcood ay ka sareyn karaan kooxda lixaad ku jirto oo ah Chelsea kooxaha u soo dhow waxa sidoo kale
Brentford iyo Everton shalay barrage isla galeen ayagana waa iskala qabteen 46 dhibcood 46 dhibcood ayay kala leeyihiin Chelsea 47 dhibcood ayay leedahay Liverpool 52 dhibcood ayay leedahay shalay guul muhiim ayay gaareen sidoo kale maanta Aston Villa garoonkooda ayay ku ciyaarayaan ayaa Nottingham Forest hal iyo hal ayay la galeen marka waxay ku tusinaysaa maanta fursada weyn oo si loogu shaqeeyo Man United Brighton fursad fiican ay haystaan haddii ciyaarta bari ay badiyaan ciyaarta ku sii xigtan ay Chelsea ay ka badiyaan waliba garoonka Stamford Bridge lagu ciyaaraya waxay ka dhigan tahay in Manchester United positionkoodii iyo booskoodii Champions League sanadka soo socdo in la xaqiijiyo doono markaas maxaa yeelay waxay ka dhignaan doontaa in ay ka saleen doonaan kooxda lixaad ku jirta 13 dhibcood inay ka saleen doonaan iyadoo 5 ciyaar bas ay ka harsan tahay marka Manchester United fursad fiican ay haystaan habeen dambe waa gartay runtii waa muhiim waynu arkaynaa waliba 9 dhibcood bay ka hooseysaa Man City iyadoo ciyaar u dhiman isku marba isku kulama ciyaareen 31 marka Ma United halkaas laftiga fursad ba ka haystaa waxaad moodaa kulankii laga badiyay iyo kulankii barbardhaca haday badan lahaydba ama labaadba u dagaalami lahayd ciyaartii oo Newcastle United iyo ciyaartii Bournemouth oo 2-2 geliyay ciyaartii West Ham United oo 1-1 la geliyay marka Carrick kooxdan u yimid way soo fiicnaadeen Manchester United ilaa waxa uu maleynaa 8 kulan Premier League ama 7 kulan ay ku badiyeen laakiin labadaas kulan mid laga badiyay labada kulan oo barbardhaca la geliyay ay aad uga niyadjabsiin maxaa yeelay ayaga Manchester United waxa ku jira maskaxdooda xilligiisa Alex Ferguson oo kale markuu kooxdan hayo koob badan soo qaadi jireen marka laba ciyaar markay badiyaan waxay isdahaan aan ku cararno Premier League ku qaadi lahayn laakiin wax aqli gal maaha in sanadkan Premier League u dagaalamaan laakiin haddii ay sidaan ku sii socdaan oo sanad soo socda Champions League ay galaan lacag fiican ay ka helaan oo kooxda si fiican u maalgeliyaan Man United waa dhici karta in Premier League u dagaalamaan sanadka soo socda ma dhaheeno way qaadi karaan laakiin inay u dagaalamaan ayaa ugu yaraan looga baahan yahay kooxda Manchester United waa gartay waa yahay dabcan waynu arki doonaa dabcan hadaa Champions League gashina macnaheedu waxa weeye in ciyaartoy fiican ay ku imaan karto waa hagaag waa yahay aanu imaano Stamford Bridge daawadayaashan caaw fursad fiican siin doonaa Tottenham wax yar nooga sheeg maanta waa laga badiyay hal iyo ever maxay uga dhigan tahay marka Tottenham xaalkeedu runtii xaal fiican ma joogto kooxda Tottenham waynu arkaynaa waxa ka badisay kooxda la yiraahdo Sunderland xalana waa sheegtay garoonka Sunderland ay joogto ee la yiraahdo Stadium Light waa garoon dhib badan weeye waxaad moodaa Tottenham hadda waxay ku jirtaa xalana way ku hoyatay caawana ku hoyanaysaa meeshaasi marka West Ham ayaad moodaa inay firfircoon tahay Nottingham Forest maanta hadii ay badin lahayd waxay tagi lahayd 35 bay tagi lahayd aad bay uga fogaan lahayd laakiin Nottingham waa la qabtay waxaan u maleeyaa Aston Villa qabatay marka Tottenham garoonkooda ayaa la isweydiinaya haday ka ciyaaraan Serie B maxaa ka dhici doona garoonkan qaaliga ah iyo lacag waa garoonka ugu fiican hadda UK marka laga hadlayo lambaroon buu ku jiraa waxaad moodaa marka kooxda Balaya haysata Deserbi baa la keenay Deserbi laftigiisu waxa waa tir la yahay maanta waynu arkaynaa ciyaartoydii Romero oo kala ooynaya kooxda marka akhlaaq xumo ciyaartoyda kaararka caska qaadan jireen kooxda isa kala jeclayn tababarayaasha lagu degdegay waliba ninka ugu daran waxa aniga waxaan isleeyahay Nuno Spirit ninkaas in khalad laga galay kooxdan waqti fiican la siiyay ahayd haddana waxa la keenay loo tababaro kale taaliftigeeda waxaad moodaa inay ahayd arrin qatar ah waliba tababaraha kale ku degdegan wuxuu ahaa Thomas muxuu ahaa Brentford ninka la keenay Thomas Frank asaga laftigiisa nin yani ciyaartoyda waxba ka hor yimid laakiin nin wuxuu ahaa aan ognahay meeshii ku hayay Brentford Premier League soo geliyay aan ka dhicin 10 sare marka fursad in la siiyay ahayd haddana waxa la keenay ninkii Croatia buu dhashay Igor Tudor salaftigiisa waan arkaynay waxa ma samayn qalad weyn ay ahayd kaas inay keeno aad iyo aad waxay ahayd markii Thomas Frank kooxda markay buriyeen in lagu soo bedelo horta nin Premier League khibrad u leh ama ha ahaado ninkii Nottingham Forest iyo Everton iyo Burnley soo hayay Sean Dyche kale khibrad weyn ayuu leeyahay Premier League xitaa Sam Allardyce ninkii Blackburn soo hay jiray asaga laftigiisa xitaa in la keenay ahayd dad Premier League yaqaanaan relegation ku si fiican ula dagaalamo laakiin waxay keeneen meesha nin Premier League weligiis aan soo tababarin oo aan ka ciyaarin oo ciyaaryahanadii aan isfahamsaneen
oo halkaas la soo taagan xanaaq iyo eedan halka intuu ciyaaryahanada maskaxda uga qaaday ayay diideen inay u ciyaaraanba markaas waxa laga badiyay hal kulan xitaa uu ku badiyay Premier League 2026 hal kulan ma aysan badin 4 bilood baa la joogaa hal kulan wax cajiib ah bal eeg 51 gool baa laga dhaliyay 11 gool baa lagu leeyahay 11 gool ayaa deyn ku ah ayaa deyn lagu leeyahay waxa laga badiyay ma jirto koox kulan baa laga badiyay ma 16 kulan baa laga badiyay wax yaab kale waa kooxda ugu xun waa formka marka la fiiriyo kooxaha Ingiriiska dhan waa 92 kooxood ayaa ka jiraan oo professional leh wadankan waa kooxda ugu xun waa gar 2026 waaya marka waxa waaye waxay ku tusinaysaa khaladaadka waaweyn kooxdan ay galeen in haddatan arkayaan waaya aanu imaano Chelsea bal shaxda iyo qaabkii garoonka lagu soo galay iyo naga waran horta ciyaarta Chelsea maanta horta Liam Rosenior sidoo sheegaba Enzo Fernandez waxay dhigeen anaga ganaxna ninkaas ma ciyaari doono marka yaa haystaan yaa lagu soo bedeli karaa waxa lagu bilaabay Andre Santos ninkan uu horta iska daba ordaayo oo maanta uu ku dhagan yahay wuxuu kooxda ku soo kordhiyay ma aqaaniba laakiin waxay ahayd in booskiisa lagu bilaabo ninkii la yiraahdo Lavia nin selata Lavia ka fiicna ciyaartu loo markii la soo geliyo xogaa si fiican ayuu ciyaaray laakiin haddaan eegno difaaca Chelsea bal int kooxdan ilaa 1 bilyan xogaa la geliyaa 1 bilyan bar in taa umaleyn xitaa lacagta la geliyo waxa ku jiro gadaal hadii la fiirinta ka ciyaarayso Coquelin inta ka ahayn saddexda kale iska bilowba difaacooda yani Hato Fofana Gusto maxay ka qaban karaan Haaland iyo Cherki iyo Dorku iyo Semenyo isku baasbaasayaan oo ku ciyaarayaan wax la yaab leh waaye xogaa way isku dayeen intii ugu horeysay ciyaarta qaybtii koowaad ciyaarta si fiican ay u ciyaarayeen dhinaca bidixda marka laga hadlayo oo Chelsea ah si fiican ay halkaas uga soo weerarayeen Cole Palmer xogaa baasaska si fiican ay ugu baasbaasayeen Pedro Neto laakiin waxay ka jeeftay Joao Pedro yaaba arkaba hal fursad xitaa muunan helin Estevao isaga laftigiis Eber ayuu ahaa ciyaarta iyadoo 2 Eber marayso inta garoonka laga saaray waxa lagu soo bedelay Alejandro Garnacho ninka laga keenay Manchester United asagana wax uu kooxda ku soo kordhiyay maba jirinba marka kooxdan isfaham la'aan weyn ayaa u dhaxayso Caicedo ku soo haray marka Caicedo sanadkan maba aqaaninkan maskaxdiisu waxa ku jirto ma wuxuu ka fikirayay Enzo Maresca ayaa ninkan si fiican u tababaray miya laakiin hadda soo u yimid Liam Rosenior sanadkan 2026 Caicedo si fiican u ciyaarayo maanta oo jeedna sida ceebtiis dhan banaanka la soo dhigay waxa uu isku hayay maanta ma jirinba markii dambe garoonka laga saaray goolka saddexaadna isaga qaladka iska lahaa waan u imaan doonaa laakiin ciyaaryahanada Man City hadaan fiirino horta si fiican ay isku fahamsan yihiin Doko iyo Semenyo garbaha lagu bilaabay Cherkin waxa la yiri meesha rabta ka ciyaar adiga free iska tahay markaasoo maanta baashaal baasbaas raaxo iyo ku jira ninka la yiraahdo Ryan Cherki sidoo ciyaaraya maanta caadi ma ahaynba labada gool ugu horeeyay kooxda asaga ka soo shaqeeyay Nico O'Reilly goolkii kuwaad uu dhalinayay iyo goolkii waxa la yaaban yahay Gehi goolku dhaliyay ayaa aad iyo aad loo yaaban yahay marka hadaan fiirino goolkii kuwaad kala soo ku yimid halkan oo jeedna Cherki kubadda wuxuu ka soo crossay dhinaca midigta ayuu ka soo crossay Nico O'Reilly iyo Fofana isku dhagan marka in meesha khaladkaas kale inuu galo difaac sidaas oo kale oo khibrad badan oo intaas lacag laga soo bixiyay horta waa khalad goolaha laftigiisa xagu taagan yahay muxuu qabanayaa laakiin crossku uu soo crossay ninka la yiraahdo Ryan Cherki sidoo soo crossay waxay horta wax la yaab leh aan iska difaaci karin ayaga laftigooda xitaa meena filanayeen difaacyada iyo goolaha waxay isdahayeen wuxuu baasi doonaa ninka gadaashiisa ordaayo Matheus Nunes oo waxay isdahayeen ayuu u baasi doonaa Matheus Nunes kubadda u soo crosso laakiin wuu khiyaanay isla markiiba cross aan caadi ahayn ayuu soo qaaday laakiin goolkii labaad haddaan fiirino waxa u jeedana halkan Ryan Cherki kubadda haysto difaacyada Chelsea waxay ku mashquulsan ayaga dhama Haaland ma qabana ma Semenyo iska celina ma ninkan garabka ku ordaa ku mashquulna markaas wixii iloobeenba Mark Guehi oo Crystal Palace markuu ninkan u ciyaaray difaacan gool badan ayuu dhali jiray marka waxa iska sii space free ayuu iska ahaa haddaan fiirino sawirka ku xigoo kale Mark Guehi oo jeedna meeshan uu soo jeestay si raaxo leh ayuu halkaas u shuuday cid difaacisa ma jirto cid ka warqabtana ma jirto marka waxay ku tusinaysaa nidaam la'aanta ku jirto difaaca Chelsea goolkii saddexaadna wuxuu ku yimid waxa waaye waxaan la yaabanahay waa ciyaarta iyadoo 2 Eber marayso
ayuu wuxuu bilaabay Sanchez inuu kubadda u baaso Caicedo maxaa ugu baasaysaa bal inta ciyaartoy Man City meeshan joogaan oo isku dayayaan in cadaadis pressure ay saaraan difaacyada Chelsea bal fiiri waa 1 2 3 4 waaye ayaa isla markii laba ku soo ordayso Caicedo mid saddexaadna gadaal ayuu ku soo galayaa marka Caicedo inkastoo ciyaarta si fiican uusan u ciyaarin laakiin goolkii saddexaad aniga waxaan isleeyahay qaladku waxaa iska lahaa goolaha inuu meesha usoo baasamaba ahaanba marka saddexda gool sidan ayuu ku kala yimaadeen laakiin ciyaartan waxaa la dhihi karaa waxaa waaye waxay ku tusinaysaa Liam Rosenior iyo ciyaaryahanada inaysan isfahamsanayn oo meeshan wax weyn kooxdan ay ka qaldan yihiin waa kugu raacsanahay horta goolahayaha xitaa goolka Gueye asaga qaladka iska lahaa intuu is wareejinayo oo kale meeshuu ka dhigay fiiri meeshaan oo kale nin gool dhali ah Ronaldo kale iyo Messi oo kale iyo Drogba kale waa la gartay laakiin nin difaac waa dameer faataha ka cabo weeye waxaas kale wax la qaadan kara ma aha marka aniga meeshuu taagan yahay fiiri iyo ninkan waa ogyahay kubadda inuu soo shuudayo tan kaleeto saddexdan difaac Chelsea eeg hal nin oo ninkaas xiray ma jiro inta space ku haysta arag maxay ku dhacda marka waa ogahay Haaland ba iskugu tageen laakiin hal nin oo ka fakir ninka ordaya ma jirin inkastoo kubadda khiyaano ay ahayd meeshuu taagan yahay fiiri Ryan wuxuu ag taagan yahay garsooraha agtiisa meesha ku soo dhiibay kubad sunu soo dhiibay inta marka laga tago maalintii Enzo Chelsea ay eriyeysay aniga waa ka hadlay waxaan ku iri ninkan la keenayo waxaa laga keenay Scarborough meel yaraada koox Faransiiska aniga waa la yaabay waxaan ku iri ninkan xagee loo wadaa Chelsea ma ahan Burnley ma ahan Chelsea waa Chelsea koox laba Champions League qaaday horyaalka Premier League koox 15 gool laga dhaliyay oo kaliya hal xil ciyaareed 38 kulan 15 gool oo kaliya waa record cid haysta ma jirto lacagta la geliya kooxda la geliyay maxay isdhaamaan Graham iyo ninka la yiraahdo Graham baa Romba oo Brighton waday oo saxaafadda Ingiriiska qaadi kartaa nin xitaa hadduu ninkan ka ciyaari lahaa Chelsea doo ka ciyaari lahaa aniga waxaan u arkaanba kooxaha weyn doo ka ciyaari jiray nin haal ka ciyaaray haal kooxda haal la yiraahdo nin ka soo ciyaaray weyn ninkani marka sidee u rabtaa koox Champions League qaaday u dagaalantay nin championship ka yimid inaad u dhiibtid macquul ma xilligaana waa laga gudbay xilligii la oran jiray waqti hal la siiyo Arteta ay haysataa Arteta xalay dhan waxa qaylinaya taageerayaasha Arsenal ninka hal eriya qaar baa lahaa xitaa waxa lagu jira xilli taageerayaasha iyo baraha bulshada ay awood leeyihiin Arsenal oo meesha ay joogto aan ognahay ayaa xalay taageerayaashii garoonka jooga ku oriyeen wax cajiib ah yahay kooxdii gurigeeda ku ciyaaraysay horyaalka u dagaalamaysa hoggaanka haysata ayaa lagu oriyay xagee joogaa marka ninkani kooxda Champions League bay saagtay ninkani muxuu ku doodayay Argentineska Enzo wuxuu ku doodayay oo kaliya war aniga lacag hal la siiyo difaac baan u baahanahay markaas maya annaga ku maamulayna shaxda ciyaartooyda la ciyaarsiinayo sidaan samaynayno ruuxu yiri saama soconaysa u kaadi isdejiya markaas maya ka yeelimayna waxaas kooxdana qaatu yiri marka hadda yaa imaanaya Chelsea hadday conference league ka ciyaarto yaa imaanaya ciyaartooyga magac leh oo imaanaya aaw xilligii Abramovich ma ahan oo lacag waalan lama hayo kooxda lacag waalan oo la siin jiray ciyaartooyda lacagta qasanada loo furi jiray ma ahan xilligaas wuu isbedelay Man United waa soo fiicnaanaysa Liverpool qasab waa soo kabanaysa ama Arsenal ha jooga ama ha baxo horyaalka marka
lixdii kooxood oo oran jiray waa weyn Tottenham haday xitaa baxda xitaa koox kale soo gelaysa meesha Aston Villa kala dagaalamaysa marka ma garan karo xitaa haddii la iska daayo ninkan meel wax dambe uu sameyn kara ma jirto aniga waxaan isleeyahay waa arkay taageere Arsenal oo leh Chelsea way sii daysay ma sii deen Man City ما ciyaartoydu way ciyaareen waxaan garawaayin laakiin ma Pep Guardiola ayaa la ciyaareedka wuxuu fiicnaadaa marka dambe ciyaarahan wuxuu fiicnaadaa qaybta dambe horyaalka waan aragnay Pep Guardiola 4 sano ugu dambeysay 18 kulan ugu horeeya waa lagu baashaalaa shanaad iyo lixaad iskaga jiraa laakiin markii la gaaro 20 kulan ayuu soo kacaa kulamadana waxaan aragnay hadda 45 daqiiqo dambe asaga iska leh Arsenal ciyaar وارسنال وكله ارسنال ما هو كدون يا حالك ارسنال انت ugu horeyso ay si fiican u ciyaaraan ciyaartii Arsenal oo kale oo koobka qaadaysay 45 daqiiqo Arsenal baa fiicnayd 45 daqiiqo waa la waayay Arsenal meel ay ka baxday ciyaartii Liverpool FA Cup kana oo afar eberka ku badinayeen first half qaybta koowaad ciyaartii Liverpool iyo Chelsea Man City si fiican u ciyaarayeen labadoo si isku mid ah u ciyaareen laakiin ciyaartii maxay ku dhamaatay afar eber ku dhamaatay ciyaartii maanta naday saddex gool oo dhaliyay qaybta dambe ciyaarta hal gool lagama dhalin Arsenal Liverpool iyo Chelsea hal gool kama aysan dhalin waa saddex kooxood weey oo aan ognahay yani meeshay joogaan Premier League ka joogaan iyo horyaalada meeshay ka joogaan waa ognahay marka waxaan garan waayay tababarayaasha waxay ku yiraahdaan ciyaartooydooda markii waqtiga nasiinada la galo Chelsea ciyaaraysay Cucurella sidoo ciyaarayay hal arin istifaa hal qalad buu sameeyay yellow card inuu qaato ma ahayn markaas ciyaarta xogaa asaga laftigiisa si fiican buu ciyaarayay uu isdilay waana sababta u lahayn Chelsea markay iska direysay ma dhaweyn laba sano ka hor baa sheegay markay iska dirtay ciyaartooyda muhiimka ahayd Arsenal markay siisay ninka la oran jiray kii Brazilianka Talyaaniga muxuu ahaa Jorginho markay siisay oo Aubameyang iska dirtay Barcelona waxa ka aad amalay midkii Isbaanishka dheeraa muxuu ahaa isaga laftigiisa Marcos Alonso Azpilicueta ciyaaryahanno badan oo khibrad leh ayaa ka tageen Chelsea oo ciyaaryahanadii Champions League soo qaadeen Antonio Rudiger kale oo Real Madrid hadda jooga ciyaaryahanadii Champions League soo qaadeen koob soo qaadeen ay iska fasaxeen hadda kooxda waxay galiyeen lacag badan ayay galiyeen waliba ciyaaryahanadii akademiyada oo Chelsea ka soo baxeen oo DNA Chelsea yaqaaneen ay iska fasaxeen laakiin dhinaca Man City dan eegno Pep Guardiola muxuu ku soo yiri ciyaaryahanadiisa soo dhiirigeliyay qaybta dambe ciyaarta maxay yeelan sidoo Ryan Cherky kale sidoo u ciyaaray intii ugu horeysay iyo intii dambe isma laha oo aad u kala duwanaayeen ninkaas uu iska ciyaarayaba wuxuu ku jiray ma taqaanaa garoonka wuxuu ka dhigtaba meel iska mid daala ah ka dhigtaba iska ciyaarayaba kubadda labaali iska ciyaarayaba ninkaasi wax pressure ma saarnaba ninkan pressure ma yaqaanaba arrinta kale la yaab kale waxay tahay Pep Guardiola inuu yahay macallin aabihiis waxa cadeynaysa xalna waa ka hadlay January markii la gaaray difaacan hadda gool ka dhaliyay Crystal Palace buu ka soo gatay gaay sameeyay 60 milyan buu ku soo gatay waxa uu ciyaartay kula soo gatay xataa umalnaya ma labadaas oo umalnaya January wuxuu soo iibsaday okay laakiin baahi uma hayn marka runta laga hadlayo laakiin dhaawacyaa jiray dhaawacyada u soo gatay uu ku sii fikiray maxaa yeelay wuxuu arkay Doku kale in dhaawacyo badan ay ku soo noqonayeen marka wuxuu yiri hadduu Doku dhaawac uu soo gaaro yaa haystaa markaas haddana wuxuu kale ka fikiray Semenyo war hadduu aado Liverpool ama hadduu aado Man United anoo hadduu ugu adkeenayo Soomaa waxa kala dhacday wiilna wuxuu ka soo saartay Arsenal labada gool ka dhaliyay maanta gool ka dhaliyay goolka koowaad akademiyada ka soo saartay waxaanu ma 20 sano ma gaarin inta marka laga gudbo waxaanu arkaynaa Pep Guardiola inuu yahay macallin waxa kale ku cadeynaysa hadda Real laftigiisa muusan ciyaarsiinin ciyaaraha qaarkood waxa uu malayna 10 kulan buusan ku bilaabin Premier League xataa marka wuu ogaa in kooxuhu ay daali doonaan
ciyaartoyda cusub la soo geliyay meesha sameeyo hadda ka waran gool dhalibu joojin lahayaa sameeyo waxa umaleynaya kulli 10 gool kudhow waa dhaliya amalaya hadduu iska badnaynba hat-trick buu ku dhaliyay Liverpool ma yahay koox buu ku dhaliyay hat-trick ka dhaliyay saddex lay ka dhaliyay ها ما حسيت كوحو كل لكن حالنا ليفربول هاتريك كل لكن waxaa umaleynaya 10 gool inuu ku dhow yahay ilaa 8 gool inuu leeyahay Semenyo aad iyo aad ugu raxsana inta markaan ka gudubno waxaa umaleynaya FA Cup ka hada umaleynaya koox yar bay hada umaleynaya ha ninkan marka meel buu u socday ciyaartoydooda maanta markii la wareysay Duko oo kale waxay ka hadlayaan kulanka Arsenal Chelsea waxay يعني دبعهدا حلبي ku xisaabtameen waa maasan yahay suldaanka wuxuu noo soo qoray Donnarumma oo goolhayaha inuu soo watay waa arrin cajiib ah ciyaaryahanada suuqa January wuxuu soo gatay Semenyo iyo Gay laakiin marka laga hadlayo suuqa summerka kale seasonka markuu bilaabanayay wuxuu soo iibsaday Ais Nori Donnarumma Ryan Cherky iyo Reinders oo AC Milan uu ka keenay afartaas ciyaar inuu soo iibsaday laakiin January marka laga hadlayo laba ciyaartoy uu ku soo daray oo Premier League khibrad u leh oo Premier League yaqaanaan waa Semenyo okay arrinta markaan ka hadlaynaa marka waxay tahay ninkan wuu fahamsan yahay meesha loo socdo waliba isagoo lacag waala ciyaartoyda kuma soo gato laakiin lacag fiican bay siiyaan mushaaraad fiican bay siiyaan meesha hadda Arteta ku soo gato 100 milyan oo kale ninka Declan Rice oo kale iyo asaga waa 50 laakiin lacag fiican buu siinaya mushaar fiican buu siinaya hadda Arsenal maxay uga baahnayd Kai Havertz maxay uga baahnayd midkan dheer oo Isbaanishka muxuu ahaa Moreno dhaawaca maxay uga baahnayd ma garanay uga baahnayd Arteta waa lacag qasaaris Madueke muxuu uga baahnaa wuxuu u baahnaa oo kaliya hadda Semenyo oo kale aad buu u fiicnaa gaay ciyaartii Arsenal iyo Crystal Palace xil ciyaareedkii January waa furnaa ciyaartoydu la hadlayay wuxuu lahaa malii baahan yahay Arsenal wuu raba laftigiisa gaay 20 milyan hadda asaga soo geeto oo siibisa kaliya 50 milyan way marka meelaha la isku dilaayo meelahaas weeye kooxda la isku dilaayo laakiin ciyaaryahanada marka laga soo gudbo tababaraha muxuu u soo sheegay ciyaaryahanadiisa Arteta wuxuu u sheegay ciyaaryahanadiisa iyo Guardiola wuxuu u sheegay ciyaartoydiisa waa la weydiiyay Sky baa weydiisay waxa ciyaartoyda waxa u soo sheegtay waxaan ku yiri adinka fursad haysta dad yacaysan adinka ha Arteta laakiin wuxuu ku leeyahay kubadda celceliya hay kubadda ma ku sugayso hal arrin baa raba laakiin aan xuso dad badan waxay leeyihiin Arsenal haddii laga badiyo maanta culaysku wuxuu saaran yahay Pep Guardiola caawa xilligan la joogo gurigiisa ku ciyaaraya waa la weydiiyay asaga laftigiisa inkastoo man games ay ka ahayd wuxuu yiri kooxda ugu fiican Yurub kooxda Ingiriiska ugu fiican kooxan Champions League laga badin koox xil ciyaareedkaas oo dhan 3 kulan kaliya laga badiyay ayaan la ciyaaraynaa buu yiri halisteeda leedahay waa runtiis laakiin marka dhinac marka laga eego dad badan waxay u fasiranayaan Man City Arsenal kuma badan halkaasi Arteta iyo ciyaartoydiisa haddii ay ku ciyaaraan kalsooni haddii ay ku ciyaaraan oo ay og yihiin mararka qaarkood waxa fiican kooxda horyaalka isku haysta inay ciyaartaan baa fiican oo iska reebi kartaa waxa darnaan lahayd hadda Arsenal fursad ay haysato haddaysan labadooda ciyaar lahayn baa darnaan lahayd oo Man City waxa dhici karta kulamada inay badiso laakiin kulankan oo kale aniga waxaan aaminsanahay haddii ciyaartoyda Arsenal iyo Arteta shax fiican oo ku ciyaaro inuu badin karo sababtoo ah Man City waxa qasab ku ah inay badiso laakiin Arsenal qasab kuma ah inay badiso Arsenal xitaa waxa fiic kara barbardhac xitaa hadday barbardhac gasho 4 dhibcood bay ka haysataa hogaanka haddii xitaa City ay badiso way kulanka Burnley u dhiman 4 kulan bay noqonayaan 4 dhibcood bay noqonaysaa kulamada u dhimanna Everton waa marti Man City Bournemouth garoonka yarka Vitality Stadium ayay tagaysaa waa garoon dhib badan laftigiisa ma sahla marka Premier League kulan sahlan ma jiro Arsenal laftigeeda waan ogahay waxa u dhiman Newcastle laftigeeda inkastoo Emirates ay tahay waa dhib badan yahay West Ham way dagaalamaysaa laftigeeda Brighton oo maleyna inuu hartixta Brighton ciyaareen waxa u dhiman marka
Man City waxa u sii dhiman Brentford waxa kale u sii dhiman Crystal Palace oo u sii dhimanta kulamadaasi oo kale waa kulamo dhib badan Arteta marka kulankaas haddii shax fiican uu ku ciyaaro Declan Rice xoogaa hore geeyo ciyaartoydiisana uu yiraahdo ama maanta ama waad baxaysaa yani taariikh ma jirto aniguna tagaya Premier League waa inuu xitaa cadeeyo inuu tagayo hadduu Premier League ka qaadin inuu cadeeyo waa xitaa haddaan qaadi waay Premier League waa tagaya inuu yiraahdo way si ciyaartoyda saaxiibada hadda uu leeyahay uu dhiirigeliyo waan ogahay Champions League uu ciyaari doonaa habeenka Talaadada waa dhib badan tahay Sport Lisbon Pep Guardiola Champions League ma ciyaarayo wuu nasanaya haddii marka kulan waxaa jira ay ciyaari doonto Arsenal oo Man City ay ciyaari doonto FA Cup-ka hadhowtida hadda kulankaas bidistay xitaa farqiga waa sii badanaya xitaa haddii arbacadan soo socota maahan arbacada dambe ay ciyaari doontaa Man City oo waxa dhici karta markaas 4 dhibcood inay Arsenal hogaanka ku hayso haddii laga badin weeye haddii ay badisana waxay hogaanka ku haynaysaa 6 dhibcood haddii Arsenal ay badiso haddii Arsenal xataa laga badiyo oo kulankaasi ay badiso Man City weli Arsenal ay hogaanka ku haynaysaa dhibco haddaan goolo badan laga dhalin ciyaarta axadda ama 4 gool laga dhalin waayo 3 gool bay ka sarreysaa Man City Arsenal ba yani goolasha farqiga badan aniga marka waxay ila tahay wax diidaya ma jirto inuu yiraahdo waa badin karnaa inuu yiraahdo waa badinaynaa inuu yiraahdo weeyaan waana badin karaan haddaad badin karin ku talagal inaad dhibic qaadatid ku soo caftay halkaas ha laakiin ani waxa iga daran Arsenal markaan eego waxa ka muhiimsan shaxda iyo ciyaaryahanada meesha ka ciyaarayaan waxa waaye maskaxda ciyaaryahanada si u fikirayaan mentalitygooda sida ay haddii cabsi ay ku jirto sidee cabsida looga saari karaa marka cabsida waxa keenaya horta hal dhinac hal way noqon kartaa haddii inta dhowr jeer horyaalka aadan inta u dagaalantay laga qaado oo aadan qaadin horyaalka ciyaartoyda Arsenal ciyaartoyda horyaal qaada ma ku jiro Premier League oo Arsenal u qaaday ha Arsenal uma qaadin ha laakiin marka laga tago iyo koreso kale iyo Gabriel Jesus ma ahan Zubimendi laftiisa kale Euro qaaday Spain la qaaday laakiin Man City Champions League bay qaadeen Premier League bay qaadeen waa rag ciyaartoy diyaarsan way hadda waa arkaysa maanta Bernardo Silva 8 daqiiqo markii marayso la baxay waa maskaxda ciyaarta Man City maskaxda wada way ninkaas uu ogyahay marka Haaland ha ku mashquulin Haaland ciyaartada ciyaar barashar afka hore ku qabo waxba difaaca gelin ciyaartoyda kulankan Champions League ani waxa ka aaminsan Premier League ka muhiimsan oo ogahay Champions League Arsenal ma aysan qaadin muhiim weeye laakiin hadda tiraahdo ciyaartoydeeda waxa wada safaya mataqaana kulankan waa gool baa leedahay gurigaagi baa joogta haddii xitaa babardhac la isla aado waxa la aadi karaa maxaa la yiraahdaa extra time penalty baa tigi karaa wax kasta iman kara laakiin kulankan babardhac lagu kala bixi karaa laftigiis bacdama dhibca uu yahay marka saako kale iyo ciyaartoyda qaarkood xitaa iyagu dhaawac ah baa marka qaarkood la safi karaa John Terry muxuu yiri waxaan ku ciyaarayay dhowr bilood anoo dhaawac ah oo cirbad lagu dhufanaya xanuun baabi'iya baa ciyaarayay buu leeyahay marka waa muhiim taa laftigeeda marka meeshaan u socdo waxay tahay Arsenal ka hadashay oo ahayd ciyaartoy Arsenal maxaa ka siiya dhibaatada waxa weeye waxay isweydiinayaan su'aasha ah anigu miyaan fiicanahay horta ma qaadi karaa horyaalka waxa ka maqan marka qofku inuu is-aamina ka maqan laakiin waxa ka timaadaa Soomaha hogaamiyaha ay ka timaadaa hogaamiyaha kooxda yaa waay marka ma hadda ciyaartii shaloo kale Arteta meelaha qaarkood uu ku saxnaa runtii bedelkiisa waa fiicnaa xilliga bedelku uu keenay waa fiicnaa isku dayga waa sameeyay shaxdii hore ka qaldanto oo shaxdan ha ku dheganaado 4-2 hadda wuxuu u bedelay xoogaa 4-2-3 hal buu u bedelay laakiin waa iska 4-3-3 laakiin ciyaarta waxa in akhrisid baa la rabaa ciyaarta 45 daqiiqo markii mareysaba
inuu bixiyo isla markiiba 60 buu keenay ogahay laakiin 15 daqiiqo la sii ciyaarayay laakiin 45 kaas haddii marka 60 waxa dhici karta inaad gool dhalin Arsenal dhalin lahayd gool kale haddii Arsenal ciyaarta ka dhigi lahayd 2-1 fursaddu fiicnaan marka ciyaartooyda ku xiran tahay mas'uuliyadaas Declan Rice oo kale ma ahan hogaamiye ma ahan ciyaartooydu way ku xiran tahay waa run haddaa rabtid Premier League inaad qaadidna kooxda u bixaysid oo aad la tartamaysid garoonkooda haddaa aadid waa inaad dhibco ka soo qaadataa Man City waxay imaadeen Etihad Stadium ciyaartii hal hal ku soo dhamaatay ilaa intii ugu dambeysay ciyaarta ayaga hal iyo ku bidinayeen laakiin hadda pressure-ka inkastoo Man City uu saaran yahay laakiin Arsenal laftiga ayaga waxay ka warqabaan haddii ciyaartan laga badiyo in horta Man City dhiirigelin weyn ay ka heli doonaan maxaa yeelay maanta Man City sida u ciyaareen waxaa moodaa Pep Guardiola inuu ku yiri ciyaaryahanadiisa war Premier League marata inay qaadaan in kale shalay Man City Arsenal waa aragteen waxa sida loo qabtay sida loo galay waliba garoonkooda ee lagu ciyaarayo haddaa rabtaan Premier League inay qaadaan waa qaadi kartaan idinka idin taala laakiin Arteta wuxuu u baahan ciyaaryahanadiisa inuu ku yiraahdo waxa u baxaysan waxa waaye koox aad ka sareyseen sanadkan oo dhan ma aha kooxdii hore oo Man City oo yaabka badnaa oo maanta la weydiiyay Pep Guardiola waxa yiri waxaan aragnay qaabkaad u ciyaaraysaan marka ma la oran karaa Man City hore inaad heshay ma yuu yiri ma aha Man City hore maba u dhaw Man City hore oo ma dhaw kooxdan marka Arteta waxa laga roo ciyaarayniisu inuu ku yiraahdo ana aqaano Man City dan ana soo tababaray maxay uu la soo shaqeeyay kooxdan Man City maanta Chelsea maanta Chelsea oo xaalkeedu bariga dhexe u yahay qaybtii hore 3 gool ba dhalin karta xitaa ma garanayo waxa loogu diiday goolka inkastoo goolna tigno la isticmaalay offside la isticmaalay laakiin aniga ma qabin offside inuu ahaa waxay ku xiran tahay nimanka laftigooda VAR-ka meeshay line ka dhigayaan aniga si iyo muuqatay dhinac marka laga fiirsho waa dhici karta dhinac kale dii laga eego laakiin dhinacan marka laga eego uma muuqan inuu yahay offside Cucurella marka fursadaha heleen waa markaan leeyahay kooxda khibrad xumaa haysa inta fursad uu helay Neto fursad uu helay Cole Palmer fursad uu helay hal mar buu banaanka mariyay Joy Pedro Cucurella laftiisa marka laga qabtay yani qaybtii hore ciyaarta 3-0 waa laga dhalin karay marka maxaa ku diidaya haddii Chelsea u ciyaartay ciyaartan maanta Arsenal waa inuu fiirsado Arteta oo yiraahdaa Chelsea waa taas oo la ciyaartay oo ku adkaysa qaybtii hore inkastoo laga badiyay anaguna aan galno dagaalka inuu yiraahdo way ka xumaay Muscad waa yahay saacadii aan ku tala galnay waa la joogaa aftax aad u mahadsan yahay daawadayaasha dhamaantood mahadsan yihiin inta la dhageystay inta ka qayb gashay barnaamijka waa inoo sabtida insha Allah taala inta ka horeysa dhamaantiin